وقولك قريو كدقان ياهي مقالة هرقيسة عبدالكريم محمود عبد الله إريو كوموتشنا إيو جعيلك باهي إيو قبو فرtuun balballaarka oo ah fanaanad sida uu aaminsan yahay codkeedu yahay mid qanciyay ayuu ku sharaxay gidaarka qolkiisa runtii waxaan jecelahay fartuun balballaarka oo fanaanad qaali ah oo jecelahay waqtiga badan iyadan siiya sanayseeda u dhageysan lahaa dareen ahaan waxa uu sheegay inuu ku habo maqalka dhigihiisa inta badan heesaha ay leedahay balballaarka oo badi uu daawado muuqaaladeeda isagoona ku sifeeyay fanaanad qurux eebbe siiyey fanaanad qaali ah jecelahay runtii heesaheedu dareen weyn bay geliyaan waan iyadana waxaan jecelahay inuu ay gaadho muxuuha warbixinteedaasi ay gaadho waxaan doonayaa inaan guursado runtii fanaanad qurux badan qiimo leh self confidence leh runtii fanaanad aan aad u taageero aan jecelahay waana fanaanad dhaaftay fanaaniinta inta kale waxay ku taalaa wadnahayga bidix baan leeyahay marka waxaan ku taalaa wadnahayga bidix fartuun balballaarka runtii waxa weeye dareen weyn bay heesaheedu geliyaan waa heeso qiso dhaba xambaarsan fanaanad aan odhan karno waa egas magool bay bedeshay oo cod macaan sawt ilaahay siiyey waxaan ilaahay ka baryaan laba dhamaana aan noqono balballaarka ayaa dhawaan sheegtay inay hargeyso ugu imaan doonto taageerayaasheeda arrintan ayaa feejignaan dheeri ah ku abuurtay cabdikariin isagoona sheegay inuu garoonka uu ku sugayo tan iyo markay imaanayso magaalada hargeysa balballaarka waxa tahay qof xushmad leh aan jecelahay respect weyn baan ku hayaa I love you hargeysana riyada wiilkan oo ah inuu jacayl la wadaago balballaarka waa mid inay dhabowdo uu filaayo kadib marar badan oo isku dayay inuu usoo bandhigo jacaylkeeda laakiinse ma aha markii ugu horreysay balse waxaa jiray dadyo kala duwan oo jacayl ay u qabaan qof kale kusoo bandhigay baraha bulshadu ku wada xidhiidho sakariye ilyaas jakarta hargeysa